kulankan oo ay yeesheen ururada Somaliland oo ay soo qaban qaabisay dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo ayaa waxa lagaga hadlayay sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka yoolka waara ee bulshada maanta waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xubno ka socday ururada bulshada aqoonyahan iyo waliba marti sharaf kala duwan waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo Umar Maxamed Miigani iyo agaasimaha dalada Sonsof Maxamed Axmed Barawani waxaana ay ka warrameen kana warbixiyeen ujeedada kulankan loo qabtay iyo ururada ku midoobay inay ka wada shaqeeyaan yoolka horumarka waara ee bulshada maanta cusbo ay sameysteen ururada bulshada rayidka ah ee Somaliland lagu dhawaaqay kaas oo dardar gelin doona fulinta yoolka 16aad iyo kuwa la bahda ah oo loo yaqaano SDG 16+ oo ah helida nabad cadaalad iyo wada noolaansho kuwaas oo kamida higsiga Somaliland ee sanadka 2030 ee yoolasha horumar waara isbahaysiga Somaliland ee SDG 16+ wuxuu ku hawlan yahay xoojinta wada shaqeynta bulshada rayidka ah iyo jilayaasha kale ee aan dawliga ahayn waxaanu aqoonsan yahay muhiimadda ay u leedahay wada shaqeyntu fulinta iyo ku guuleysiga higsiga 2030 isbahaysigani wuxuu u furan yahay inay ku soo biiraan urur kasta oo aan dawli ahayn iyo shakhsiyaadka u taagan inay ka fuliyaan Somaliland arrimo la xiriira yoolka 16aad iyo kuwa la bahda ah SDG 16+ marka la eego wada tashiyada iyo xubnaha isbahaysigu la sameeyeen in ka badan 55 urur oo 6 gobol ee Somaliland ka kala socda 18 bilood ee ugu dambeeyay waxa la isla gartay mudnaanta iyo talaabooyinka xilliga dhow iyo xilliga dheer ee SDG 16+ Somaliland wax ka qabadyadaasi waxay la jaan qaadayaan qorshaha qaranka ee labaad NDP2 iyo shaqooyinka ay ku hawlan yihiin dawladda qaran bixiyayaasha iyo ururada bulshada rayidka ah marka la eego qorshayaasha yaala ee isbahaysiga bulshada rayidka ay wuxuu soo saarayaa warbixinta horumarka ay Somaliland ka samayso SDG 16+ Somaliland wax qabadyadaasi waxay la jaan qaadayaan qorshaha qaranka ee labaad NDP2 iyo qorshayaasha ay ku hawlan yihiin marka la eego qorshayaasha yaala isbahaysiga bulshada rayidka ay wuxuu soo saarayaa warbixinta horumarka ay Somaliland ka samayso SDG 16+ taas oo lagu soo bandhigi doono shirka sare ee qaramada midoobay High Level Political Forum ee July 2019 iyo shirarka kale ee caalamiga ah isbahaysiga bulshada rayidka ah ee Somaliland wuxuu ka kooban yahay xarunta falanqaynta siyaasadda CBA xarunta xuquuqul insaanka Somaliland HRC hay'adda caalamiga ah ee Saferwall dalada Sonsof dalada Nafis Network iyo Soonyo Umbrella Male Abdi Ahmed Karile telefishinka caalamiga ah ee Xuriyo magaalada Hargeysa